dadka iyo dawladda Mareykanka ayaa xusaya 20 sano guuradii ka soo wareegatay weeraradii 11 Sebtembar ee sanadkii 2001 kuwa oo lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington ee dalka Mareykanka. Weerarkaasi oo ay fulisay kooxda Al-Qaacida ayaa noqday kii ugu weynaa ee noociisa oo kala ah oo ka dhaca dunida taariikhdan casriga ah, waxaana ku dhintay 2996 qof. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlayay xuska munaasabadda ayaa ugu baaqay shacabka Mareykanka midnimo. waxa uu sidoo kale madaxweynuhu u booqday halkii ay ku ooli jireen labadii daarood ee mataanaha ahaa xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada New York. sidoo kale waxa uu booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon oo ku taala waqooyiga gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. dhammaan xarumahaasi ayaa waxaa lagu weeraray diyaarado ganacsi oo ay lahayd shirkadda American Airlines ee Mareykanka. weeraradii Sebtembar 11 waxaa xigay dagaal uu Mareykanku ku qaaday dalka Afghanistan kaas oo qaatay 19 sano 10 bilood 3 toddobaad iyo 2 maalin. wasaaradda difaaca Mareykanka waxa ay sheegtay in Mareykanka ay dalka Afghanistan uga dhinteen 2325 askari. cidna ma oga tirada saxda ah ee dadka rayidka ah looga dilay dagaalka Afghanistan, inkastoo lagu qiyaaso inay kor u dhaafayaan 200,000 oo qof. sidoo kale kooxaha Al-Qaacida iyo Taliban oo Mareykanka 20 sano kula dirirayay dalka Afghanistan ayaa iyagana waxaa halkaasi ka soo gaaray khasaare baaxad leh oo aad u ballaaran. hase ahaatee FBI-da Mareykanka waxay sabtidii soo saartay macluumaadkii ugu horreeyay ee lala wadaago dadweynaha Mareykanka ka oo la xiriira baaritaanka 11 Sebtembar ee sanadkii 2001. weeraradii lagu qaaday Mareykanka iyo eedeymaha ku aadan taageerada dawladda Sacuudiga ee afduubayaashii diyaaradaha. soo saarista warbixintan ayaa ka dambeysay amar fulineed oo uu bixiyay madaxweyne Joe Biden ka oo la xiriiray in warbixinada baaritaanka ee la xiriira Sacuudi Carabiya dadweynaha lala wadaago oo loo soo bandhigo. ehelada dadkii ku dhintay weeraradii Mareykanka ka dhacay Sebtembar 11 ayaa ugu baaqay madaxweyne Biden inuu ka baaqdo munaasabadaha xuska sanad guurada 20aad ee dhacdadan. waa haddii uusan daboolka ka qaadi karin macluumaadka la xiriira tuhunka laga qabay Sacuudiga in uu taageeray weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday ama uu ka garabsiiyay kooxihii weerarka fuliyay. warbixinta FBI-da Mareykanka oo lagu soo koobay 16 bog ayaa lagu sheegay inuu jiray xiriir ka dhaxeeya afduubayaasha iyo saaxiibo u dhashay Sacuudiga, laakiin aysan jirin wax caddayn ah oo la xiriira in xukuumadda Riyaad ay ku lug lahayd weeraradaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof. Sacuudi Carabiya ayaa muddo dheer sheegaysay inaysan wax door ah ku lahayn weeraradaasi, iyadoo safaaradda Sacuudi Carabiya ee Washington aysan ka jawaabin codsi la xiriira sida ay u aragto warbixinta cusub ee la soo saaray goor dambe oo Sabtidii ah. 15 ka mid ah 19 qof ee diyaaradaha afduubtay ayaa u dhashay dalka Sacuudi Carabiya. guddi ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa waayay wax caddayn ah oo sheegaya in Sacuudi Carabiya ay si toos ah u maalgelisay kooxda Al-Qaacida oo ay Taliban ku qarinaysay Afghanistan xilligaasi. hase yeeshee baaritaankan ayaa meesha ka saarin inay dhici karto in shakhsiyaad mas'uuliyiin Sacuudi ah ay taageero siiyeen Al-Qaacida. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay qortay in qoysaska qiyaastii 2,500 oo ka mid ah dadkii lagu dilay weeraradaasi iyo in ka badan 20,000 oo qof oo ay soo gaareen dhaawacyo, meherado iyo caymisyo kala duwan ayaa dacweeyay Sacuudiga iyagoo raadinaya balaayiin dollar oo magdhow ah. haddaba sidee ayuu u dhacay weerarkii 11 Sebtembar lagu qaaday dalka Mareykanka? 4 diyaaradood oo ah kuwa rakaabka oo marayay bariga Mareykanka ayaa waxaa afduubtay koox rag ah, kadibna waxaa loo adeegsaday sidii gantaallo waaweyn oo la hago si ay ugu dhacaan dhismayaasha taariikhiga ah ee New York iyo Washington. 2 ka mid ah diyaaradahaasi waxaa lagu dhuftay daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga ee ku yaalay bartamaha New York. diyaaradda koowaad ayaa ku dhacday daarta dhanka waqooyi xigtay saacadu markay ahayd 8:46 waqtiga New York. tan labaad ayaa sidoo kale lagu burburiyay daarta dhanka koonfureed xigtay saacadu markay ahayd 9:03. dhismayaasha ayaa waxaa qabsaday dab, waxaana ku xanimay dadkii saarnaa dabaqyada sarsare. qiiq ayaana isqabsaday guud ahaan magaalada New York. wax ka yar 2 saacadood ayaa labadii dabaqba oo 110 biyaano ka koobnaa ay ku burbureen kuna basbeeleen, waxayna ka tageen boor sida daruurihii cirka isku shareeray.
diyaaraddii saddexaad ayaa abbaaro 9:37 daqiiqo waxay ku burburtay dhanka galbeed ee wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon kuna taalla bannaanka magaalada caasimadda ah ee Washington DC. diyaaradda afraad ayaa abbaaro 10:03 daqiiqo waxay ku burburtay dhul bannaan oo ku yaala Pennsylvania kadib markii rakaabkii diyaaraddu ay wax iska caabin ah sameeyeen. waxaana la rumaysan yahay in ragga waxa afduubtay ay doonayeen inay ku weeraraan dhismaha Capitol ee Washington DC. muddo bil ka yar weeraradii kadib ayaa madaxweyne George W. Bush waxa uu duulaan ku qaaday dalka Afghanistan isagoo gacan ka heliyay isbahaysi caalami ah si loo dabar jaro kooxda Al-Qaacida loona soo qabto Osama bin Laden oo ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradan. sidoo kalena Mareykanka uu arkayay inuu yahay dal gumaad badan ku haya ummadda muslimiinta ah. si kastaba ha ahaatee laguma guuleysan in la soo qabto Osama bin Laden, hase ahaatee sanadkii 2011 kadib markii ciidamada gaarka ah ee badda Mareykanku ay weerar qorsheysan oo gaadmo ah xilli habeen ay ka fuliyeen dalka Pakistan waxa ay ku khaarijiyeen hogaamiyihii Al-Qaacida ee Osama bin Laden isagoo halkaasi kula noolaa qoyskiisa. ninkii la sheegay inuu qorsheeyay weeraradii 9/11 oo lagu magacaabi jiray Khalid Sheikh Mohammed ayaa sanadkii 2003 waxaa lagu xiray dalka Pakistan waxaana markii dambe lagu xiray xabsiga Guantanamo Bay halka oo wali uu ku xiran yahay. hase ahaatee Al-Qaacida ayaa weli ka howlgasha in badan oo ka mid ah dalalka caalamka. Mareykanka 4 madaxweyne ayaa soo martay kolkii weerarkaasi uu ku qaaday dalka Afghanistan. waxaa sidoo kale 20kaasi sano Mareykanka ka soo gaaray dalkaasi khasaare baaxad leh. lacag kor u dhaafaysa $2 trilyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa waxaa si buuxda loogu qarash gareeyay colaadda. Mareykanka ayaa waxa uu 2 toddobaad ka hor isaga baxay dalka Afghanistan isagoo tilmaamay madaxweyne Joe Biden inay soo gabagabowday qorshihii iyo howlgalkii laga lahaa gudaha dalka Afghanistan. 13 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay ku dhinteen weerar lagu soo qaaday garoonka diyaaradaha ee Hamid Karzai ee caasimadda Afghanistan wax yar ka hor dhamaystirka daadgurayn Mareykanka uu ka waday garoonkaasi. waxaana shacabweynaha Mareykanku ay ku kala qaybsan yihiin faa'iidada iyo khasaaraha laga helay weerarkaasi. dad badan waxa ay ku doodaan in Mareykanka uu khasaare ba'an uu ka soo gaaray weerarkaasi, waxa ayna sheegeen in 20 sano kadib iyo dhimashada 10 askari iyo dhaawaca 20,000 oo askari iyo burburka dhaqaalaha dalkaasi in ay isaga soo baxeen dalkaasi iyagoo wax natiijo ah aan ka gaarin. halka dadka qaarkoodna ay ku doodayaan in dawladda Mareykanku ay caalamka u muujisay inay tahay dawladda ugu weyn dunida ee dhanka militariga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda. waxay sidoo kale ay ku faanaan in ay sameeyeen aargudasho ballaaran iyaga oo doodooda ku adkeynaya dilkii sanadkii 2011 Mareykanku uu geystay Osama bin Laden. waxayna ku tilmaameen aargudashadii ruuxiga ahayd ee uu sameeyay Mareykanka. weeraradii 11 Sebtembar ayaa waxay barbilaw u noqdeen dagaal cusub oo lagu magacaabo dagaalkii argagixisada ka oo Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedku ay ku qaadeen dalal badan oo caalamka islaamka ka tirsan kuwa oo qaarkood wali ay sii holcayaan.